هلا صحابي كسور هذا جلكي مركل وانا وش عبد الصابون رجالك ايضا وانا سنه شعبنا برو فضل جلك انت ku cusub tahay subscribe ta saar aad baad u mahadsan tahay saaca waxaan jeclahay 20 kun subscribe inaan gaaray xilligan aad u mahadsantihiin aan leeyahay 100% idinka dartiin hadan ahaan lahayn 20 kun subscribe ma aan gaari lahayn طبعا بالكور 10 كن سبسكرايب ahaan oo maleena hal bilan waxaan ku sameynay 10 kun subscribe insha Allah ramadaanka toos dhamaan waxaan jeclahay inaan 30 kun gaari doono maanta barnaamijkeena wuxuu ku saabsan yahay hooyo cunug yar oo 3 usbuuc jiro haysato ninkii ka dhalay waxa uu leeyahay aniga cunugan ma aanan dhalin ninkaasna hadda waxa uu la socdaa naag kale naagtii kale inta soo booday marka waxa ay sameeyay Facebook waxay dhigtay cunugii kale iyo alien kan waxa la yiraahdaa alien waxa la yiraahdaa dad qoomiyadi kale ku nool oo nooc kale u eg oo cunugan u eg yahay leedahay cunugan saqiirka marka meeshii dacwo badan ka socoto aan idin kala baxo idinka iyo sheekada balay Everyone, this is Alicia. Welcome Alicia to the show. qofkan waa Alicia waa gabadha cunuga dhashay oo naagta kalena ay mataqaanaa Facebook ay soo dhigtay odagii ka dhalan oo ku inkiray Alicia blames all of this drama on one person. Damon's new girlfriend, Brianna. marka maamada cunuga haysato waxaas oo dhan ay ku eedeynayaan ninkan oo cunuga u inkiraa problemka dhan waxa wada waxay leedahay ninkaas qoftu la socdo waa problemka dhan regardless to talk about a newborn baby and put my baby's picture next to an alien regardless صح waxay leedahay sidee qofta adiga aad la socotid adoo wax hartid ahaato aad u ogolaanaysaa cunug yar waxba aan geysanin in inta Facebook dhigto alien la barbar dhigto calashan waa sheeko haan barnaamijka dhanba naagtaas ku qabtaa marka naagtaas waana naagta marka soo jawaabay cunugeeda ku mashquulso ninkii ka wadatay calashan barnaamijka halkaas ku socda say ilaadaa gabadhan ma isku egyihiin oo leeyahay hadda marka waxaa la fiirinaa cunugii iyo aabihiisina isku egyahay aniga waxay leedahay indho blue aan leeyahay cunugan indho madow uu leeyahay aabihiisu egyahay sanka afka meel kasta haddaa si u fiirisid laakiin hadda sawirkan iyo sawirkii cunuga xoogaa isku egyihiin laakiin ilmaha markay dhashaan badanaa madaxa waa weyn yahay marka la abuuraa xataa xibnaa loo kala abuuraa marka cunuga badanaa ilmaha markay yariin madaxa weynaanaa kabacdi jirka xubinta ugu horeysa kabacdi jirka lasoo weynaanaa calashaan ilaah uu talagalay laakiin dadkan ma fahmaan oo cunug soo inta la eg ay judge gareynaya استغفر الله استغفر الله they believe that I got pregnant by him went with my ex-boyfriend and got an abortion and got pregnant again and wound up with the same dude waxay aaminsan yihiin calashaan cunta markii dhaleysay in midkii ninkii horena ay la socotay marka maas qas oo ka imaaday cunugaana sidaas calashaan ku dhashay marka 2 days after my baby was born I called Damon there for the baby when the baby was born? no Maury I called him 2 days after my baby was born mala xiriirta la yiri cunugaaga markuu dhashay odagaan hadda marka calashaan waxay leedahay waa la xiriiray waxay sheegi rabtaa kii kale aamuseena waxa uu leeyahay lawii ka bacdi la soo xiriirto leey maba ogeen baan cunugas meesha ku dhashay marka waxa uu dhahay tiri cunugaas DNA-diisa aan baarna ka bacdi aan fiirinaynaa oo kale cunuga uu arsan DNA aan baarna qofka intuu ku dhaxata list raja ku jirto laakiin ma dhalin sideeda ama DNA ama DNA aan cunugan ma dhalin sheeko kale waa sheeko waa ma aksoo socota meeshan waxyaabaha buuqa maanta maadaama ay buuqayaan cashan dad buuqay lama fasiri karo waa kelmad aad u badan ay sheegayaan oo micno darro ah marka waxyaabaha qaarna kulleeto Maury afka dhi la siinaa shucaaca la gelina oo hatta TV-gu ma ogol in la soo gudbiyo
marka waa ma mootinayna meelahaas I can't wait to see this. Matter of fact, Maury, they need to get from by me because see my temper is just not set right for bitches like that. waa caytamaysaa qofta Why would you post a picture on Facebook Cause she like that? ignorant. She wants to do that shit. mawrid sobooda wuxuu yidhi sawir noocaan ah maxaa kugu kalif inaa Facebook dhigtiyaa la yidhi maamadii waxay leedahay marka qoftan waa qof jaahil ay leedahay ayada warkeeda ayada codkeeda la fiirinaa marka Posted a picture of her ex and him, and I asked, who does the baby look like? He posted the picture first. So then she gonna come back. It was like, oh, you talking about my baby? you put So that I was like, in no, out there? I found your baby daddy, and it's Roger from American Dad. Somebody did it for you. qofta marka Facebook aa lasku hela marka Facebook aa marka cunugii iyo odaygaana marka habartaan cunuga dhashay cunugeedii odaygii isleeda waa ka dhalay ee Facebook dhigtay dadkaas ku fiirina tii kale waa maseertay ayadana alien kan ay soo dhigtay marka sheeko marka oo la yaab laha marka Facebook ka dhacdo tiro badan marka waa dul mareynaa naagtan waxay ka dagaalamee in mataqaanaa ninkan laga wato oo la yirahdo cunugaas oo dhalay waayo cunug oo dhalay dil yirahdo ninkan xagga u badana waayo ilmaha gaalada aad u jecel yihiin ilmana mar hadduu imaado waxaa waa sheekada waa isbedele naagtii kalena waxay leedahay naagtaas maxaa ka gala meesha cunugan ninkaana dhalayo adiga waa sheeko noocaas koleeto xaaladda hadda so far ninkaan marka aragtiin hadda waxaan u jeednaa inuu khayr mas-uul yahay qof iska qeylina koleeto waa yaryahan u malaynaa laakiin waa qeylina maanta dhan waa qeylina beys ma lahan deganaan ma lahan war nadiifa ma lahan koleeto naagtaana koleeto oo wataa marka naagtaana xoogaa soo buufiday ama malaynaa koleeto sheekaa meesha ka socota adiga abaami ka raadi ha igu dambaajin waa soomanahay I just have one question. Regardless of what the hell both of them is talking about, what did my baby do to either one of them for them to post that picture? wuxuu yidhi wax walbo annaga dhan naga dhex dhacay tiri calashaan waa cunugeyga hadaayana waa ay sheegtay cunugeyga maxaa Facebook saan loogu soo dhigay dhahda calashaan waa good point to her wax maanta oo dhan idinkan waa maqlaysin oo malaynaa ninkan maba aamusayaba waxaa maqli jire xididka warkaa qofkaan furmaa maqli jire ninkan warkiisa maxaan fasiraa maba aamusayaba bele ku qaade warka nin raga maaha wallah Maury, he has 2 little boys. This is the only girl. Do you understand me? That baby deserves a father. She did not do nothing to him. sax waaye waxa ay leedahay gabadhan gabadha keliya waaye calashaan ay dhasheen u malaynaa marka labadooda ay wada dhaleen ama ama habarta ay dhashay marka waxay xaq u leedahay inay aabbe hesho cunuga saqiir markuu yahay inuu aabbe helo xaq uu leeyahay calashaan waa Let me just ask us about the timeline, okay? We asked her about the So baby. according to Alicia, Damon was cool until you came along. Live. marka dadku waxaa la sheegaa uu yidhi ninkan inuu ahaa nin degan intaan adiga soo gelin kahor calashaan nin degan uu ahaa haddaa idin sheegay ninkaan waa qayla ninka waa waasho calashaan qofta inay waasho hadda la cadeynayaa marka waa sheeko kale waa sheekada Maury, I call her and check on her all the time. When she first left, she didn't let me know nothing. Brianna, Look shouldn't at you, my baby, man. weli ninkan waa buuq waya buuq iyo macno daro wada iyo hadalan Brianna, shouldn't you just let the two of them work this out? ha qoftan waxaa la yidhi misku dayday in ninkan iyo naagtaas iyo cunuga bal xoogaa ay wax xaliyaano ee ayaka bal wax fiiriyaan waa ware waa isku dayay tiri laakiin sidee saaxiibaynimo inta ninkeyga lasoo waco in la yidhahda kaale cunugaaga arag sheeko kale waa sheekadaas waa We're gonna find out right here. si fiican u fiiriya warqadda DNA yaa lasoo saaray warqadaas markasta soo baxda waa meesha ugu fiican waayo dadka wejigooda waa isbedelaa buuq waa dhammaanaa sheekada ilaa runta warqadda ku qoran moogta warqadii DNA-ga dhacaanka dhalmada waa wixii dhalaa la kala saaray wejiyadooda fiir marka shub baa leeyahay wallahi When it comes to three-week-old Serenity, Damon, you are the father. cunuga adigaa dhashaa la yiri ninkii baatoo dhasa u qiilaay oo naagta dabada ka wadatay
waxaa la yidhi cunugeedaa dhale war aan kusoo celi emotionka iyo dhaafinayso 3-week-old Serenity, Damon, you are the father. qofti waa dabaaldegay wallahi dabaaldegay adduunka tii kale waa xanaaqday waa kuu sheegay qofti waa feesteenaysaa waa kuu sheegay oo heesi qaadaysaa hees caadi la laxamiya hadda laxanka saaratay iyo mirihii wixii dhamaa waa ugu jirtaa qoftaa marka qofti kale maxay samayn doontaa marka ninka laakiin waa sabcinooya ninkaas naagtaasa karkarinaysa ma ahe ninka waa sabcinooya cunuga waa rabay laakiin inuu u kala caddaatuu rabay adaa dhale oo hees camal ay ku qaadeen moogta asna waa soo booda wuxuu yidhi anaa ka taxadara ninka nin xun ma ahan horaa loo sheegay ninka nin xun ma ahayn laakiin ninka meel kale laga karkarinayo wuxuu yidhi shaqaan raadsanaha uu yidhi cunugan anaa ka taxadara uu yidhi oo qaylaha la iskugu sheegaya hadda dadka madoogaa raaba wax kasta la iskugu sheegaa ware qofti ilaa hadda waa dabaaldugaysaa qoftii kale iskariinka sooma gel waa jabsataa maleena ninkii raabeena aragti shaqaa helaa cunugaa ka taxadaraa ninkii dhahay aragti lacagti kale xaw yaale waale sheekadaa sheeko waalo wala ramadaan wala energy badan ay ka dhamaaday xoogaa waa videoga dhex galay damoor aan hadlo damoor aan qoslo damoor energy oo kaa dhamaanayo marka dartiidaan jeclaystay inaan barnaamijyada aan ka joojin wax macquulka ah oo waxyaabaha aan ceebta ku jirin waxyaabaha google laafyada aan ku jirin waxyaabaha aada xun aan ku jirin waan ka ilaali doonaa insha allah barnaamijyada caadiga iyo macquulka aan idiin soo gudbi doonaa marka warkan ku badan maayo waxaan kaga tegayaa sidaas iyo mac salaamo peace